الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن إذا الهانتيبا ميل كستو جوجتين وحنا سو غارني هدي اني سو تبين جيرني war wixii dalka dibadda dacalada adduunka naga soo gaaray oo liiga imaata shaashada telefishinka madaxa banaan ee bulshada TV Boorama xarunteeda magaalada Boorama warka waxaan la socodsiinay aniga Cabdiraxmaan Jaamacaye qodobada warka ugu doorka roole waxa kamid ah Mareykanka oo saldhigyo ka samaysan doona garoonka diyaaradaha ee Kismaayo iyo Beledoogley ciidamada la dagaalanka argagixisada booliska UK ayaa maalinnimadii Khamiistii shalay xidhay gabar 15 jir ah oo la sheegay inay qorsheynaysay weerar argagixiso sidoo faahfaahinta warkan inoogu hayo Shucayb Maxamed Kaain Shucayb Bigeys booliska dalka UK ayaa Khamiistii shalay xidhay gabar 15 jir oo lagu eedeeyay inay ka shaqeynaysay falal argagixisa gabadhan oo laga soo qabtay bariga magaalada caasimadda ee London ayaana wali magaceeda la shaacin booliska ayaa sheegay inay qorsheynaysay weerar la beegsanayo xarun kamid ah xarumaha booliska magaalada caasimadda ee London maalqabeen reer Sacuudiga Amir Al-Walid bin Talal ayaa sheegay inuu sadaqadeysan doono 32 bilyan oo uu haysto 60 jir qoys reer Sacuud ah oo ka dunida ugu lacagta badan ayaa 34 jirka ayaa liiska maalqabeenada ku jira Amirka ayaa sheegay in ay ku dhalisay arintani ururka gadis kaasi oo bil Yemenida sameeyeen sanadkii 1997 lacagta ayaa lagu bixin doonaa in kor loogu qaado fahamka dhaqanka awoodda siinaya dumarka iyo gargaarka masiibooyinka gadis ayaa amaanay go'aanka Amirka wuxuuna ugu yeedhay mid nagu dhiirigelinaysa inaan gargaarka dunida ka wada shaqeyno lacagta ayuu siin doonaa ururka gargaarka u dhisay Amirka oo la yiraahdo Al-Walid kaasi oo horeyba u siiyay 3.5 bilyan oo dollar Amirka oo aan wali xil dawladeed haynin ayaa ah gudoomiyaha shirkadda maalqabeenka ee boqortooyada Amirka ayaa sheegay inay qaadanayso deeqdani dhowr sano iyadoo ay la socon doonaan guddi uu isagu madax u yahay Mareykanka oo saldhigyo military ka samaysan doona garoonka diyaaradaha ee Kismaayo iyo Beledoogley waxa soo shaabaxay in militariga Mareykanka ay saldhigyo qarsoodi ah ku leeyihiin qaybo kamid ah Soomaaliya oo ay ka soo abaabulaan weerarada ka dhan ah ururka xagjirka ee Al-Shabaab saldhigyadan oo ku yaala Kismaayo iyo garoonkii hore ee cirka ee Beledoogley ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana ku sugan ilaa 120 saraakiil oo ka tirsan militariga Mareykanka sida lagu daabacay wargeyska siyaasadda dibadda ee fadhigiisu yahay Mareykanka la xog ogaal ah oo ay sheegeen in ay sababta loo sameeyay saldhigyadan ay tahay sidii diyaaradaha nooca aan loo duuliyaha lahayn ee droniska hawlgallo si fudud ugu fuliyaan Soomaaliya iyadoo markii ugu horeysay ay masaafo dheer ay ka iman jireen diyaaradaha droniska ayaa Mareykanku kula dagaalamo kooxaha jirka dhinaca hawada mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubba ayaa u xaqiijiyay wariye ka tirsan wargeyska oo la kulmay in kamid ah saldhigyada ku yaala meelo ku dhow garoonka diyaaradaha ee Kismaayo isla markaana diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee runway-ga ama dhabaha diyaaradaha ka ordaan inay aysan adeegsadaan mararka qaarkood ay dhacdo in la joojiyo duulimaadyada caalamiga ah wasiiru dowlaha madaxtooyada Jubbaland Cabdiqaadir Cabdi Jaamac ayaa u sheegay wargeyska in saldhigga loo isticmaalo hawlgallada ka dhan ah argagixisada isla markaana lagula socdo dhaqdhaqaaqa midnimada Al-Shabaab oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Jubbooyinka saraakiisha sare ee militariga Mareykanka ayaa si cad u sheegay in ay Soomaaliya geeyeen diyaarado drone ah oo ayna cidna wadan marar badan oo ay duqeymo la beegsadeen xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab iyadoo markaasi ay ku soo duuleen saldhigyada militariga ee Mareykanku ku leeyahay Djibouti, Kenya iyo Ethiopia sanadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii hogaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ay furisay ee Mareykanku leeyahay saldhigga Mareykanka ee qaaradda Afrika oo loo yaqaano Africom ayaa afhayeen u hadlay ka gaabsaday inuu shaaciyo tirada saxda ah
ee ciidamada iyo saraakiisha ku sugan labada saldhig iyadoo uusan beenin jiritaanka saldhigyada isla markaana diiday inuu bixiyo faahfaahimo ku saabsan hirgelinta saldhigyada ku yaala garoonka Bilidoogle oo badanaa loo adeegsado weerarada cirka ee ka dhan ah al-shabaab iyo waliba tababaro lagu siiyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka. waxaa wargeyska u xaqiijiyay saraakiil ka tirsan AMISOM si hoos ah ula hadlay maadaama aysan fasax u haysan in ay warkaasi bixiyaan. waxaa la aaminsan yahay in duqeymaha diyaaradaha aan cidna wadin ee Mareykanku leeyahay ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayid ah. tan iyo 2007 Mareykanka ayaa lacag balaayiin dollar ah uga baxday arrimaha Soomaaliya waxaana lacag gaadhaysa 1 bilyan uu ku taageeray howlgallada ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM iyo lacag gaadhaya 950 milyan oo uu siiyay hay'adaha qaramada midoobay. goobjoogayaal qaramada midoobay ka socda ayaa dhaleeceeyay doorashooyinka dalka Burundi ee bilaami doona Isniinta. goobjoogayaasha ayaa sheegay xaaladda ay tahay deegaanka in sahlan la qabto doorasho xor ah oo lagu kalsoonaan karo saanan leh oo loo dhan yahay. kadib markii madaxweyne Nkurunziza uu ku dhawaaqay dabayaaqada bishii Abriil inuu tartami doono xilka madaxtinimada ayaa 12 qof lagu dilay dibadbaxyaalkaasi ka dhacay sidoo kalena waxa dhicisoobay isku day afgambi. afayeen u hadlayay qaramada midoobay Mustafa Farhan Haag ayaa sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku booriyay hogaamiyaasha Burundi inay nabad ay ka hormariyaan colaadda siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan. doorashada oo qaaday mucaaradka ayaa la qabtay waxaana qaramada midoobay arrintan ay ku yeertay xilli ay jirto cabsi baasay iyo cagajureen ka socota qaybo ka mid ah dalkaasi Burundi. daawadeen wali waxaan ugu guda jirnaa warkii telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV ee magaalada Boorama. iminkana waxaad ku soo dhawaataan wararka niga hayna gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. boqolaal dadweyne ah oo ay horkacayaan mas'uuliyiinta xisbiga wadani ayaa si diiran u soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalka UK mudane Xuseen Aadan Cadde. mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee soo dhaweynayay gudoomiyaha ayaa halkaasi ka yidhi kelmado soo dhaweyna hadaladoodina waxa ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa waanu sugu nimi gudoomiyaha xisbiga wadani ee UK Xuseen Aadan Cadde. waxaanu leenahay Xuseen waxa timid dalkaaga hooyo ku soo dhawow obaacdii xisbiga ee gudaha waa xogagaal Xuseen dabad iyo gudaba xaaladda xisbiga waana xubin runtii qiimo weyn u leh xisbiga waa tiir dhaxaadka xisbiga sidaasaan ugu soo dhaweynaynaa. aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu soo booqdo xaruntii iyo dalka. wax badan uga warrami mayno. Xuseen waa mas'uul xisbiga ka tirsan wuu og yahay waxa dee dalka ka socda iyo hawluhu sida ay yihiin. waxaan saaka madaarka Cigaal International Airport ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee UK Xuseen Aadan Cadde oo runtii mujaahidna ah sanamtii hore oo rag badan oo mujaahidiin ah oo saaka halkan ku soo dhaweeyay wada garanayaan. Isla kala gudoomiyaha xisbiga wadani ee UK oo hadalka la wareegay ayaa ka hadlay xaaladda dalku uu marayo waxaanu yiri anigu gudoomiyaha UK baan ahay. UK way ogyiin kulmiye xisbiga kulmiye kama jiro UK waanu ka dhaarinay wuxuun baana ka jira xisbiga wadani ayaa ka jira 22 xafiis baa aanu ku leenahay xisbi kullihi ma jiro. waxaanu doonaynaa experience-kii aanu kaga nadiifinay UK inaynu kaga nadiifino Somaliland xisbiga kulmiye xukuumadda jirta. haddii aan xagga dawladda aan eegno dawladdan waqtigeedu wuu dhammaaday waxaanay leeyihiin maadaama waqtigii uu dhammaaday 5 sannadood ee ay ku dhaarteenna ay dhammaatay waxa imaka ay sameeyaan dhaartinama qabanaysa bay yidhaaheen. wax walba waanu samaynaynaa adduunkii waanu guranaynaa dadka waanu xidhaynaa waxaanu doonna waanu samaynaynaa. marka waxa weeyaan taasi xilligaan idiin dhaaranay
way soo dhaaftay. intaa kadib gudoomiyaha ayaa loo soo galbiyey goobta uu Hargeysa ka degayo. xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo ka tirsan aqalka golaha wakiilada Somaliland oo nagu soo booqday xarunta guud ee telefishinkani ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa si kulul u cambaareeyay jildil la sheegay in ciidamada ilaalada madaxtooyada Somaliland u geysteen xildhibaan Xasan Cawaale Caynaan oo golahaasi ka tirsan. xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo amuurtaasi iyo arrimo kaleba ka hadlaya ayaa yidhi anigu imaka socodka aan ka soo galay waxa kaliya idinka horeeyay waxa ahayd inaan soo booqanay oo ku soo booqanay dhakhtarkii wali gurigeygii maan gaarin sababtaan u gaari waayna waxa weeye arrinka foolxumadiisa iyo mataqaanaa cawaaqib xumada uu leeyahay awgeed ayaan mataqaanaa aan halkaa aan idinku yimi waxaan idiin sheegayaa horta marka hore waxa weeyaan dowladnimadeenni way baaba'day dowladnimadeenni toos baa loo baabiyey qarannimadii toos baa loo baabiyey kun waxoo qaldan oo ayaa jiray tan waa ka mid fowdada waddanka la geliyey waa ka mid maxay ahaydee musuqmaasuqa maxay ahaydee la caadaystay waa ka mid dhulkan la wada boobaya waa ka mid lahaanshiyahan gaar ahaaneed ee qoysnimo waa ka mid waxaan ku hadlayaa caawa afkii gudoomiyaha guddida cadaaladda iyo garsoorka iyo xuquuqul insaanka ayaan ku hadlayaa anugu afkeedaan ku hadlaya waxaan leeyahay haddii 24 saacadood lagu soo xidhi waayo ciddii waxaa geysatay falkaa geysatay hadday mintaliya tahay hadday tahay nin maxay ahayd askariya hadday tahay cid kasta oo tala arrintaa ku lahayd haddii 24 saacadood ilaa 48 saacadood jawaab lagaga heli waayo xukuumadda waxaan ballan ku qaadayaa golaha maalinta la furo in madaxweynaha iyo xukuumaddiisan taagta daran leh ee awoodda la ee aan shaqaynayn ee mataqaanaa xilgudulashaani ku dhacday inaan soo dhigno iyada ayaan ballan ku qaadaya. xildhibaan Siciid Cilmi Rooble sidoo kale waxa uu fariin u kala diray xildhibaan Xasan Cawaale Caynaan iyo xildhibaanada kale ee maxaafadka ee ku jira aqalka golaha wakiilada Somaliland. xasanow adaan kula hadlayaa adays dhigay halka xasanow imseen wada hadal 42 haddaanu halkaa isku taagno wallahi dalkaasaa badbaadi la oo anagaa badbaadi lahayn oo maalkaasaa badbaadi la oo berberaa badbaadi lahayd oo abudabaydan kiishka loo tushaa badbaadi lahayd waa laidin sheegayaa kontonkii nin baan weli la hadlayaa kontonkaasow halkaa lagaga tagay xasanow baa idin dambaysa haddaad nacnacow halkaasaa kuu dambayn alagabileyow halkaasaa kuu dambayn bukhaariyow iyada kaba daran waxaan weydiinay cid u timi wuxuu noo sheegay cid allaaliya cid xukuumadda uga timi dadkii uu sidaa imika 10 sannadoodba dee uu walhanaya dee u waashay ee dee salacale dee madaxa la iskaga taagay dee hortoodii wallaahi baana cid u iman saasuu noo sheegay xisbigii yaa kaaga yimi kulmiye ee aad dhowaanta gashay ku waalatay salacale kaana waxay yidhi cidiigama iman geesta kale Siciid Bustaale gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga wadani ayaa isla arintani cambaareeyay. waxaanu halkan cambaarayn aad u migiya miisaan leh dusha uga tuurina xukuumadda fadhiidka ee fashilantay ee xilligii ka dhammaaday ee aan dalkan talo iyo hogaamin midna aan saaka u haynin dhibaatada lagula kacay xildhibaan Xasan Cawaale Caynaan oo mujaahid saful awalka oo ha xukuumadda iyo daawadeen qodobka ayaa habeenkan caawa ugu dambeeyay war wixii dalka dibadda dacalada adduunka naga soo gaaray oo aad ka dheehanayseen shaashada telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV stuudiyihiisa magaalada Boorama warka waxaan la socodsiinaya anigoo Cabdiraxmaan Jaamacaye wadku maasantiin daawashada wararka barnaamijyaadka iyo waxyaabaha kale ee ka baxa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV ee magaalada Boorama waa aniga iyo dhammaan baxdayga la qayb qaadatay isku dibridka soo tabinta habeynta oo Bulsha TV oo nigaga tagaysa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Ramadaan Kariim.